بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku dhashay baadiyaha gobolka Bay. taariikhda igu qoran baasaboorka waa 1936 inaan dhashay. aabahay baa Allahu naxariista ka yimid baadiyaha Hiiraan. wuxuu soo doontay qur'aan barasho iyo dhulkaas raxweynta u soo doontay. markuu qur'aanka bartay meeshii ku guursaday macallin buu noqday. aniga kolkii meeshan ku dhashay isaga qur'aanka i baray Allahu naxariista. aniga oo yarba aabahay dhintay Allahu naxariista oo markaan qur'aanka uu ii dhameeyay oo naqtiinkana dhaxdii ii joogo amrigaygan uu yahay 9 jir iyo meelahaas. markaas abtigay baa ila wareegay. abtigay baa intuu safar igu soo diray kitaab safiina ay ii soo dhiibay saan bay dhabo uga akhristo. laakiin bay dhabadii kuma aanigaanin aniga oo meel fadhiyo oo nin imaam ah oo nitukiyay aan leeyahay ha ku bilaabo. iyo anigoo meesha fadhiya nin kale oo socdaal ay soo fadhiistay. ninkii baa yiri kaal anaa ku akhrinay galbeed ma ku geynaya. isigii baan iska soo raacay. waxaan imid Jigjigi agagaarkeeda. dhulkaas yaan tagay meel Jigjigi ku korayso oo dhulkan faafanta korkeed ah. sheekh kitaab ku akhrinayo oo sheekh Maxamed Cabdullaahi la yiraahdo oo dugsiga meesha loogu hayo. sheekhaasaan arkay habeen baan u hooyanay. markaasaan dadkii ila socday baan waxaan ku yiri anigu nin yar baan ahay sheekhan ila hadla ilmi baan ka akhrisanaya. sheekhi baa ila hadlay. sheekhi baan ku haray isaga ii bilaabay kitaabkii ugu horeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim ah safiina. waxa uu bilaabay kitaab safiinaha Soomaalida akhrista mid oo mukhtasar ay yiraahdaan. isaga halka igu bilaabay cashirkan uga soo bixi jiray. dugsigiin markii dambe ana la wareegay macallin dugsiga waan ahaa. kolka halkaasaan ka bilaabay. markii dambe waxaan noqday nin macallin ah oo la yaqaan oo xirta iyo sheekheeda ay ku soo degaan. waxaan meesha igu yimid nin sheekh oo la yiraahdo Xaaji Cali oo markii dambe dugsi ku qabtay laga aflaxay magaalada la yiraahdo Diradhabo. markii horena uu ka yimid yaani Makka joogi jiray. sheekhaas meesha noogu yimid anaga oo akhristay kutubtii naxwada intii hoose iyo fiqhigana intii hoose aan akhristo meesha noogu yimid. kolkaas meesha fadhiisay xirtii aan u jilay. kolkaas isagii aan alfiyaha ka akhristay. markii aan alfiyaha meesha igu dhameeyay ardaydiin aan u dhameeyay waan ka soo baxay. waxaan imid Jigjiga sheekh Ali Jawhar kutub akhrinay Allahu naxariista. sheekhaasaan ku taxmay xirtiisii baan ahaa. markuu wax badan oo akhriyo sheekhi xooga waajib booda suufinimo taabatay. waxaan kutubtii waa iska daayo wuxuu galay qur'aan akhris iyo wardi. laakiin nin kale oo sheekh oo ka aflaxay oo asaga iga horeeyay oo aad u fiican oo la yiraahdo Axmed Sheekh ina Sheekh Ibraahim Baraawo la yiraahdo. ninkaas Ilaahay ibaray. ninkaasaan ku xirmay isagaan ka akhristay balaaqadii iyo mantiqii iyo kutubtii kale oo isaga iga horeeyay. isagaana ka aflaxay. waa sheekh wuxuu ahaa xataa la joogadiis adoo waxba ku akhrinaynin ay xikmad badan ku jirtay. iminkana waa nool yahay. sheekhaas yaan ka akhrisan jiray. sheekh kalena wuxuu akhriyay kutubta cilmiga la yiraahdo Caruud oo la yiraahdo sheekh Maxamed baa la oran jiray. isagana culimadaas iyo anigu wax ka bartay 5 sheekh iyo cilmigayga oo ahaa. waxay dhigi jireen axaadiista. waxay dhigi jireen tafaasiirta. waxay dhigi jireen fiqhiga. intaba wixii Ilaahay nasiib iga siiyo yaan ka akhristay. alfiyada waxa weeyaan waa cilmu naxwo iyo sarfiga. isagana waa علم الصرف علوم عربي وكمل ياهي. عروضك علوم عربي وكمل ياهي. بلاغة 3 عديد فني بعلوم عربي كمتها. كتب تاسو إذا العلوم عربي أوي. علوم عربي كان حوق بكلها دواقس. شيخ محمد معلم مركا وأرضي قوة بالصفات غالبا وصلاته نكاس عجب كو عجب قلنش. واحد عجب قلنك لا. شيخو معلم مكون مقشة مقعيسة معلم محمد. مكون مقشة. معلم محمد إنه معلمها مركي ورا القرآن ليش روان مقلب. وكا. ماشان شيخ يجن. أيو شيخي أرضا وقول لك جري. أيا شيخ يجن ويردي. وقلبيض.
كل كاسو إن عبد الله جبي الشيخ عبدي بالأورجران ماضي مع أرضي هي أرضه وقبت الشيخ سواء هالك أقول لك أيوة دبيتنا الشيخ يجان ويردي ألفية ذي أغربون استقوا ألفية ذو أغريا حاجة على صوبنا أو أخي يا شيخ يا شيخ محمد أولاد أيام أطلقنا هالك كل كاس أنو أرجعني نكانوا ده صومالي هو وحيصو ده إن كيسي وكلكت وقت من سوها بارج الرجل كوا باصو صومالي أيوة كحيس ويلكي محمد ها كل كاسو وحب اللعبة منهاجك ومركز شيخ محمد مع الأخرستا يا فرائشة أيوة أخرستا وحنو جرى كتابك محوها اسمه كتاب يرو بافضله وقلبيتك قال له أخرسه المقدمة الحضرمية بافضلها لو تاسو أيوه أغريا نحول هو سنة وأغريا كل كاسو أيام ماشي تاني ولا هذا سنة صومالي محام ماشي كل جوا عين كاسو يسلم أودني وهالكلمة قاعدة دي مركا مقالة معها وميل مية شنكورة ليلة وهالكيف كتلا شنكورة على باشا محي هاي فيام بيرو أي سلا كتاهي سلا قبل غير كبر يسا أي كتاهي وقوي آذنا معها وسلا ير بريهان فيام بيرو أي كتاهي شنكورية حريرية وليلة ركا ركا جبجيك هذا إيه كل حياة ما هي هذا خد كذا وكبر سيء كل كان فيام بير اللي قلت جيو سلنا الله وقع يا خد كن جيجي يسكو حرا ما هين الجيس بيو فيام بير اللي بحسن تاي كل كان هالكاسان دبينا كسوق حيني كل كتاب كين نور لما يشيخه أيام سوق حيني والوارث كعلى ماشون فهم جيسية كسبة ديسينا عن أرجنا شيخ محمد مع المركة وحاجة على صوبنا وإذن آخرنا يو فيها ماشى وكو آخرنا يو وإذن لا دقيسا يسوى دين عنا معلم قرآن معلم قرآن هذا كتابكم هذا الكتاب ما وحلو أغريا مرحبا العراف كله أغريا فيها مركة خمتها لا ما وش كده جيسنجري هذا نو دقيسا وفهم دي سنة أيا إنه ده وحكا كسيات قرنيسي دبنا ورطورة شكلان خاص أيوة نقول نقضي أنك خاص نقول نقضي نديب وقومونا نقول ماشي صفات في قصة عجيب كده يقول هم كتاب كمركي ماشي درس وشوقه أو شيء شيء أنا لو حنسكان سكفر مرن بالله سكفر مرن بالله سووا معلن ما ذي بو حقا أيوة كصور الصدي دبنا كل كان أنو درس يقودني oo waliba waqtiga aanu gaarka isku sii ahayna aanu isku sii ahayna ayuu wuxuu sameeyay jiray cashirku halka darsigu joogo ayuu lacagtan xaashada ayuu galin jiray walkaasaan lacagtii aan kolkan darsiga waran maxay lacagtani kolkaasaan la yaabi jiray lacagtii sababtay ku timid baan culimada weydiiyo war aasaasan arkay maxaad u malaynaysaan shaqo arsaaqo la ku siiyo isagu ilaa uu og yahay culimadii kale ayaa de la yaabay noqotay dabeedna aduu kolkii dambe annagana dan iigal kulku isagu calaadkiisa war saaqa la ku siiyo ma xagee ka timid ma cid baad ka dhacday mid uu yeeriyay halkiisa yardan igalino isagu sababu markii dambe waa isla ogaatay waagi dambe waa isla ogaano lacagta gelin jiray halkaas waa farsamo cajiib sida kale xifdigiisa sheekh maxamed macallin iyo fahmi badan baa lagu sheegi jiray maxaad ka xasuustaa lama yiraaha fahmi lama yiraaha wali shay quraankan xaafid buu ku ahaa oo habeenkii kama baaqan jirin subaxu iyo dharaartii wuxuu isla wadaba ka habeenkii u badnaan jiray nin xagga kala saa uga dhisan buu ahaa kolka xifdigiisana shayga kol loo sheego wuxuu wada yaabi jirtay shayga kol loo sheego soo u xafido wada yaabi jirtay adigu intii hoos ogeydin baa u ogeyday culimada kale deeseenan xerow oo kutubta iska akhrisan buu la ahaa laakiin anagu waanu ogeyn ilaahay inuu ninkan wax ka soo wado waanu malaynay sidaasanu ku wada jirnay
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 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 الله ينصر. آمين. صدقات كثير الله ينصر. آمين. جعلنا نسوق بالباقي مراد كذا الله. آمين. مراد كذا الله هو. آمين. مراد كذا الله هو. آمين. دينا مكان مكان الله. آمين. دينا الله وصف. آمين. اليوم هذا أنا أقول تبغي يكمل. هو خصوصنا يا الله ينور. آمين. هيك متى بدنا معامل وبركة وسلام الله. آمين. معامل مع الله نسيه ونعم ما بركة الله نسيه. هي نعم. ظاهر يا باطن الله ينوشه الله ينوشه الله ينعبر الله ينعبر الله ينعبر إنكم من أنت والله عافية. صلى الله على محمد.